السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمنت وايد ولا السلام ما شاء الله سيتين هبين وناكسن هذا أنا ما أنت وسلامنا سلام كبعدي حجعلنا ولا الله يكرم يوتيوب كسومالي سماوات واحد مشايخ شيخ بعد كده ما أقولي وحويا حصل سنة يرتشي والله كحرم يوتيوب كده سماوات سودو هذا دمان وحد الله نهاية أنت كحرم يوتيوب كده سماوات وكم عشانتين إن أنا فلو قريسان هذا أنت أصلنا وحد الله نهاية سودو هذا ولا لا welcome and had a share, like, subscribe, إن شاء الله. Thank you and أبدأ mahadsantiin dhammaantiin aad baan idin jecelahay wasooda dhawaata insha Allah inta nagu cusub baan la hadlaynaa intii horena I love you guys aad baan idinku mahad celinaynaa maasha Allah waxaan idin wadnaa cashar baan hadda ka soo baxnay waxaan kugu leeyahay haddana waxaan isnay walaalihiin la sheer gareeya waxaan yaraan idin la jeclaanay maasha Allah waxaan idin la sheer garaynaynaa kursiimada ubadka iyo sida caruurta maskaxdooda loo koriyo iyo sida caruurta waxyaalahan ay iminka soo badanaya aynu uga badbaadno sida looga badbaadi karaa waxaa looga badbaadi karaa adigu waalid ahaan intaanad caruurta sicin inaad adigu isu saxdo inaad qof wanaagsan oo degan aad noqoto waa inaad qof wax kasta u dulqaadanayo waa inaad noqoto qof ilmo weyn ha ahaado amba qof weyn ha ahaado dhegaysanaya dadkana inaad noqoto ayaa muhiim intaa haddaad samaysid carqabad kasta oo kaa soo wajahda amba dad waaweyn ha kaa soo wajahda amba ubad yareer ha kaa soo wajahday waad xallin kartaa amba waad ka gudbi kartaa waxa inagu yar innaga isdhegaysiga inaan qofka aynaan dhegaysanin in hadalka uu sheegayo laba kaaga soo duusho amba mid kaaga soo duusho intii kalena wuxuu ku hadlayay inta kalena uu sheegayan aanad garanayn laakiin taa looma baahnaa qofku weyn hadduu kula hadlayo waqti sii la hadal dhegayso nuunaha yarna ha yaraysanin qofka yar haysanan wuu yar yahay iska dhaaf hadalkiisu wax macnaa kuma fadhiya ka weynsaad u dhegaysanaysid ayaad ka yarna u dhegaysanaysaa okay dadka waaweyn iga saar gabadhkooda dadka yarar baynu soo noqonaynaa dadka yarar markaad dhegaysatid isna saad u dhegaysatid uun u dhegaysanaya wax kastaaba waa koobi wuu ku koobiyeynaya talabaad marka aad dhegaysato meeshii haddii xumaan uu ka hadlayay hadduu samaan ka hadlayeyba adiguna wuxuu ka hadlayay waad aragtay kabacdina si wanaagsan oo xal ku jiro oo caqli celin ku jirto ayaa u wada hadlaysan adiga ilmihi waxa uu markaa ilmuhu uu dhibsanaya amba xanaaq ku abuuri karana adigu waalid ahaan waad iska joojinaysaa sida Soomaalidu maxay tiraahdaa si xeegale xeego u noqoto ilkana u nabad galaan samee meel dhexdhexaad ay isugu imanaysaa ilmihii kabacdi isagoo waxa qaladka uu wada aanad ka qaadanaynin si caqliyaysanna aad uga qaadatay ayaad samaynaysaa waayo caburintu sideedaba ma fiicna cadaadisku sidiisana ma fiicno waxaasoo dhan maskaxday dheemis soo gaarsiiyaan waa inaad wada fadhiisi qurux badan dhegaysi qurux badan caqli celin qurux badan waa inaad juhdi badan gelisaa wax kastana intaad juhdi geliso unbaa midhaheeda la qortaa runta marka aad doonaysaa Soomaali Maxamed haddaad caruurtaada juhdi gelisid ilaahay balaayadaha kaaga xijaabo adigana ha kugu asturo waxaa laga yaabaa juhdiga aad gelisay wax badan oo qurux badan inay kaaga soo baxaan caruurtii haddii aynaan juhdi gelinin amba aynaan dhegaysanin amba aynu isnaha waa ku fiiro wuu iska hadlayaayo kasii soco amba waxa uu doonaya aynu isniraahno waxaanad kari karin buu qofku yar kugu khasbayaaye sii soco waxyaalahaas waxaad ogaataa in adiga carqabad kugu tahay ilmahaadana ay bukaan ku ridayso bukaanka ilmahaadu markuu insaydka hoose uu ka bukoodo midaad adig ogaan karta maaha waa miduu qarsanayo ayaad ogaan kartaa laakiin haddii ilmihii aydan kontaakti lahayn xagga hoosena uu ka buko ma ogaan kartid yaa ogaan kara marka dadka friendiskiisa
macallimiintiisa maxay ahayd dadka uu isagu isleeyahay marka meesha way kuu dhaamaan oo aanba faamiligi way kuu dhaamaan ayuunba ku sirqarsanaya ilmuhuna inuu dad kale ku sirqarsado ilmuhuna inuu dad kale ku sirqarsado amba uu macallin uu is yidhaahdo kanaa kuu dhow amba qof inuu friendskiisa wax u sheegto waa laga qurux badan yahay fulaxantiisa ma moogaa inta xantaada dibadda kasoo maqli lahayd in waalid walaal isxalli adigu deganaansho muuji dhegaysi muuji shir afargeysooda muuji caruurta inaad iyaga waqti badan gelinaysa muuji adigoo ta waalidnimo dee ay markasta waajib kugu tahay haddana iyaga waxaad tustaa inaad mid gooni ah aada u samaysay oo dheeraada soo dhowo waa ku dheeraada waa muhiim in waxyaabaha laga hadlayo koritaanka caruurta oo kaliyaata 100 kun oo jeer anigu in badan baan ka hadlay ilmaha koritaankiisu wuxuu u muhiim yahay intiina ugu badan ilaahay hadaa waalidiinteeda caruurta wax laga kordhiyaa waxa weeye waa aaday hadday noqoto maqaar iyo hadday noqoto sariix xiisayaartiisa laakiin ma kaba korino maskaxiyan marka wuxuu u baahan yahay qofku inuu juhdi badan geliyo waalidku hadduu caruur dhalay caruurtuna maaha iska dhalda laakiin waxa weye caruurta inuu qofku juhdi badan geliyo mar hore waxaa laga yaaba marka dhasho kale dhalinyaranimo tahay waxyaabahaas oo dhan maragtay laakiin muhiimad wuxuu yahay qofku inuu dhegeysto ilmihiisa waa number 1 hasaad wax ku ogaanaysa haddana ilmaha dhegeysan isma fahmi kartaa noloshiisana ma fahmi kartid dabeecadiisana ma fahmi kartid inta uu yar yahay u istaag maqal wuxuu ku leeyahay okay haddii uu reeliyo su'aal mar walba uu soo celiyo isku mid yihiin waa tiraahdo waan garanaya waxaasaa soo wataa والله marka waxaa laga yaabaa inay waalidiin badan dhibaatooyinkaas oo kala haystaan laakiin waxaad samaysaa markuu ilmuhu ku weydiiyo wuxuu u baahan yahay su'aal qoliya ama jawaab qoliya ayay ku saleeyaan dadku soomaalida inta ugu badan hadduu ilmuhu ku dhago kaagu ku dhago ama uu doonayo ma uu doonayo waxaa la odhanayaa lacag ma haysano maaha caqligal mar walba ku weydiiya inaad ku tiraasaa laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad sababta ku diidaysa aad ku salayso ahaan aad ku salayso inaanay maxaa muddada loogu talagalay aanu gaarin ilmaha intee qofku waxa marka qofku uu maaragtay 13 waddankan oo kale ah 13 14 15 oo kale qaad kara mobilka sidoo kale xidho waalidhaan aad u ogaato sida ilmihii u controleyso aad ula socoto marxaladiisa wixii dhan laakiin inaad maaragtay ku salayso war waa tiraahdo sidan weeye kan maaha tiraahdo adigu waalidhaan maxaad aqoonsan wuxuu xuquuq kugu leeyahay adigu wuxuu xuquuqda kugu lahaa hadduu dad kala keeno adiga wuxuu xuquuqda kugu lahaa ama adigu ku sirqashado ama wax kuu sheego familigaaga haddii dad kale u sheego waxay kugu tahay adiga waa qofku taa ogaadaa waalidku haddii ilmaha tahayna quraac iyo qada iyo casho siiso luugtiisana wax baariso iskuulkiisana ku tiraahdo tag maagto canaanato maxay ahayd waan ilaaliyaa maxay ahayd waxba maaragtay ma gacan saaro aad iskuulkiisa u dirto taas lafteed maaha waalidnimo maskiix ahaan ma la sheekaysataa ilmahaaga ma dhistaa ma kobcisaa waxyaro diraa wax cusub ilaa maayo halka sano intuu gaaro ilaa maayo 15 sanadood ka gaarayo ilmaha intaa ku jiro waa recording cusub waxa guriga iyo hooyadii ama ka sameynaya ayuu ka sameeyay yes waa miki fro waa mar walba su'aal joogta marka su'aashu joogtada waa qofku aqoon weey aqoonta hooyadii ama ka yes halka Rashid markuu uu wado maanta uu su'aal wado su'aashii haddii aad ka qanciso oo ka jawaabto way joogsan maskax dhisan buu noqonaysaa way joogsanaysaa wixiina khibrad uu ka sii faa'iideeyo laakiin hadduu maanta isagoo hadlaya hadalkii ku cabariso qofkii ma korayo su'aashina weli way ku taaganta wax ka qanciya muuhili walaalayaal biliis ilmaha sax ugu jawaaba waxa uu sheegayo dhegeysta su'aasha badan ee kugu soo celinaya waxaa laga yaabaa inaan jaaris badan haynin waxaa laga yaabaa inaan waqtiga uu kula hadlaya aanay macni ku habboonayn laakiin mar kasta inay ku habboon tahay ka dhig adigu qanci
ilmahaada waxa uu doonayo ee ka dhex guuxaya saacaddaa haddii adigu aanad awoodi karin inaanad awoodi karin ha iska dhigin taas adiga iyo sitaan ku noqonaysaa ilmahaadii aan ku biliif garaynayno dad kale marka waa wuxuu ugu sheeganayo waan awoodi karaa laakiin xilligaas iyo xilligaas ayaan samaynaynaa balanta aad samayseen balanta aad samaysateen marka ay isla ogtihiin ha ka bixi waalid imika example yar sanadkii cusbaabaa bilaabmay wadamada yurub baa lasoo jibinaya alaabta ilmahaadi waxaad ku tiri bil ka hor buu kusii weydiiyey mobil waxaad ku tiri hooyo wallahi hadda xoog bay maxay tahay dukaamadu qaali u yihiin ka waran haddaynu marka lasoo jibiyo bil ka bacdi aynu iibino is okay kaasaan doonayaa ha okay ha waynu iibinaynaa hadeeda 25-26 lasoo jibinaya maalintaas ku iibinay yes ilmihii hadii intii aad ku tiri uu waayo waqtigii ay dhaaftay beentana adigu ilmaha adiga baraya laakiin haddii sidii kelmadii saxda ahayd ay isla ogeydeen aad uga soo baxdo hadda waalid wanaagsan baa tahay adiguna waqti kugu habboon oo aad kari karayso wixii oo aad goyn karayso ayaad qabsatay ilmihiina si wanaagsan buu kuugu aqbalay marka walaalayaal ha la iska daayo waxyaala ilmaha lagu maaweeliyo in aan waxba ka jirin ka fogaada taas ilmahana saaxiib dhow la noqdaa si aan wax kasta uu gudihiisa ku tooganaa u ogaataa wax kasta oo carqabadahoo aad adigu aragto inay khaldan yihiin isdhaafi forget inta wanaagsan kala soo hadh ilmahan inaad qabato oo la hadasho oo aad fadhiisiso oo ka dhaadhiciso waxan uu maanta ku soo celinaya aad ka dhigaysato isagoo daalan adigu aad wax sii weydiinaysa oo kaa tago isku day muhiimaddu waa qanciso waa qancisaa inaad karaahsanay su-aalihiisa taasay muhiimadu tahay waxaana ka mid tahay korinta maskaxeeda ilmaha waxay ka mid tahay qaabka ilmaha maaragtay maskaxahaan loola dhaqmo waxay ka mid tahay in maaragtay ilmuhu aad ilaaliso oo maxay ahayd aad adigu waalid ahaan aabba iyo hooyo qofka uu eeganaya ee maaragtay ku dayanaya yes adiga ku dayanaya waa adiga qofka uu koobi garanaya waa adiga haddaad adigu dee marna chineska ciyaarto marna japaniska ciyaarto destin noqonaya khasaare su-aal baad rashid ka dhawaajisay communitygeenu waxay caan ku yihiin labis qurux badan cunto qurux badan maxay yeetoy guryo qurux badan runtii ilmahaadii oo labis qurux badan sita jir qurux badanna leh iskuulkii buu tegey laakiin soomaali maxamed labis qurux badan iyo cunto qurux badan maaha nolosha waxa weeye qalbi qurux badan waxaynu inagu caan ku nahay waynu is ognahay laakiin saas maaha walaalayaal waa qalbi qurux badan dunidana waxaa lagu socdaa qalbi qurux badan runta wallahi marka aad doonaysaa ilaahay bay igu og inaanay maryo qurux badan dadkani aanay ilaalin maskaxiyeen bay ilmaha loo maskaxda laga duleeyey ilmaha cadaadis badan ku socdo waxyaabaha ay maskax ahaan weydiiyaan wata exactly rashid adiga ku haystay talabaad qofba qofka uu ka labis badan yahay ee ka taagan yahay waa laga baari waa la baaraa wadamadan joogo maxaa loo baaraa bal waxaan ilmahani waa aad buu dhaqaalo badan baa ka muuqda dhaqaalahan badani inuu sharci caadiya ku salaysan yahay iyo inuu photocopy yahay ayaa la ogaadaa photocopy marka aan leeyahay waa in ilmihii dharkiina laga soo dhisay cuntadiina laga soo dhisay uu dee halkaa isoo hayo laakiin xagga hoose marka la waraysto ilmihii doono ayuu sii daynaya waa lay dhibay sidana laygu sameeyey waxaan layma sameeyey waxaanaan doonaya waxaana igu dhacay waxaana la sameeyey ilmihii halkan ka buuxay xaggana aad buu uga fiinyay ka mashquul galay waxbarashadiisii iyo waxyaabaha dabadda ku hortaagan waxyaabahaas dhan baa la waraysan kara marka muhiimaddu waxay tahay qofku inuu ilmo dhisnaado aqliyan ahaan taasay muhiimaddu tahay number one
wax kastoo ku yimaada inuu waalidka ku daafacayo og yahay waxaa tahay yes isfahansantihiin ilmihii ku daafacayo taasay muhiimadu tahay marka kale waxay uga jeeda muhiimada oo tahay qof maarata hadhowtaba markii qofkii waraysi lala galo kalaa oo xaggaaga laga soo mari karin waayo wuxuu ogaya waxaa tahay intaad heer iyo jeclaan u hayso intaad ilmaha la sheekaysto intaad maskaxdiisa dhisto inaanu qof kale u baahanba qofkan ku dhoori lahaa qofkan kale intuu ku dhoori lahaa amba uu ku hantiyi lahaa guriga uu ku haystaa bay ka dhisanta marka uma baahna dee wixii gurigoodaba uu ku haystay in halkan looga sheekeeyo uma baahna every 24 hours inta uu kula joogo iyo intuu ka maqan yahay waxbarasho kala qaataa waxaa la qaataa in maaragtay la baro inaad maaragtay xor tahay inaad qof kula hadli karin inaad maxay ahayd hadduu maaragtay wax lagu geysto soo hadal maxay ahayd gabigiisa oo la laalaadinaya waxyaabo kale loo sheegaya marka waxaa laga dhigaa native waalidkii laga dhigaa marka muhiimaddu wuxuu yahay qofku inuu maaragtay isagu maaragtay uga dhow yahay cid kasta taasay waalidnimadu tahay oo cid kastana waad uga dhowdahay markaad ilmihii daraasayso markaad la sheekaysato markaad qalbiya dhisto markuu ku jecel yahay markaad ilmihii tusto muxubiya kalgacal waxa dhacay rashid aniga faraysa waxa dhacay xagga waxbarashada caruurta aan ku fiicnay caruurta iska jirto wax ilaa wax laga hadranaya aan jirin waalidkood saacadoodo wax la leeyahay akhri waxa wade hore u soco haddana natig ah أنا مسكح ده رحبة المسنجي وقدرت كسومالي دمين بكوشة أنا بقف كاسة أي كوشة كاس أيوه هو حي هايستا إنه رومنا كل كايست وحنا لقي إلمي ما كلور كريني عشرة دلوسو ديري سنة كستف وتا وحنقولي دعيتان أيوه وتا هاي توي الموسيقى اللي ربي تيشن كيسو وما تاجني أنا بمعني كلا ما صار عشرة بحين أيوه المو وحكم وقتا هبيع سنان محاكو دعي وريا إلهي كرنايا وقف الصوب aan interest ku ahayn waxaan la dhiganayo oo isaga shakhsinimadiisa iyo samayskiisa ilaahay u abuuray laakiin iyagu waxay raadinayaan in caqabadooda ka haysato maalin walba waa ribood soconaya ku imanaya maalin walba lagu leeyahay saas waa lagula kulmaya waa lagu yeerayaa waxaa lagu leeyahay waa cadaadin ka arko waalidka waa inuu waalidkuna dhiirigala siiyo waa inuu waalidku soo dhaweeyo ilmihiisa waa inuu waalidku waxyaabahaas oo dhan waa inuu waalidku sameeya waalidku sababta uu ka cinayahay xagga waalidka adigu waa dhiirigelisi waalid ahaan adigu waa dhiirigelisi waad kicisay laakiin weli waxbaa ku adag waxana wax adiga kaa yimi maaha wax iskuulka ka imanayana ma aha oo wax isaga ah laakiin ayagina waxay baarayaan oo ilmahan u kici kari leeyahay in xagga dambe lagaga dhigan yahay marka haddii dhinac focuska saaraya ma waa la odhanaya marka haddii aan dhinacba lagu badbaadayn soomaaliya maxaa inoo qorshaysa marka su-aal baan idin weydiinay haddii kii waxbarashada ku liitay xagga rabbaaniga ugu liitay laleeyahay xagga xoogsan lagaa haystaa haddii waxaa kugu dhigay kii yaraa halkaa shaxshax lahaa laleeyahay xaggan waad ka qurux badantay xaggan miyaad ka liidataa oo la iska wareysanayo maxaa inoo qorshaysa marka hadaba qorshe wuxuu yahay in yar baan insha allah u dulmaraynaa waqtiguna waqti 20 daqiiqo waalid ahaan wuxuu waalidku wanaagsan yahay wuxuu horqabad leeyahay ilmuhu marka ku horeysa la siiyo ahmiyaddeena sidaan horebayda kasoo hadlay idiin sheegnay taasay ahmiyaddu tahay inuu ilmuhu xalku yahay laakiin hadhow tala ilmuhu qaaraan waalidiinta baan maxay carruurtooda laga qaada jiro farama saaray laakiin sababo kale looga qaado laakiin muhiimaddu waxay tahay walba inuu ogaano carruurta maha kaliya taa looma saara carruurta inuu maaragtay qofka waalidku dilay oo nabadgelyada siyaabo dhowr siyaabo baa looga qaadaa dayacnaan iyo habyacsanaan lafteeda waa looga qaada waa inuunu keergaraynin qofka waalidka qofku aanu focus garaynin muxuu keenay musabuntuu keenay siduu socdaa muxuu qofkan maaragtay uga caawin waayo waxyaabahaas dhan waa la saaraa oo siyaabo kala lagu qaadaa dayac dhowr buu noqonayaa oo dad baad maaragtay ilmahan maaragtay xagga keerka aan keer siinayn oo maaragtay maskax ahaan aan keer siinayn maxaada korob ahaan ama guud ahaan maqal ahaan aan maxaada keer siinayn maskax ahaan aan keer siinayn
taasaa la yaarta marka ilmaha keerinka qofka ilmuhu maaragtay dayaca ku jiro dayaca wataa laakiin siyaabo kalaa jira iyana maaragtay inuu ilmaha qofku tacadi oo kala tacadiyaduna dhowr baa imanayaan dilku kaliya tamaha boqolaal tacadi baa imanaya maskax ahaan haddii maaragtay caddayn qofka lagu helay waalidku caaya aan ilmahaasi geynin oo kula kaco dhibaatooyin 24 hours hanjabaado waxyaabahaas oo kala marka waxyaabahu waxay u baahan tahay waxaa ku dheeraan maayo waxay u baahan tahay marka hore horqabad bay leedahay dhigto marka horqabadka haddii la qabto male hadhow hadduu ilmuhu socdo ilmihii haddaad fara taagtaag martid faraha taagtaagtay dabeedna isla faruu taagtaagaya marka hadhow toba macallimiinta faraha la gelaya thank you baby maasha allah aad baa u mahadsantihiin waxa hadalka kusoo gebagabaynaynaa waraysi hala sameeyo meelaha aynu ka liidanana kor halaysu soo qaado maasha allah maxay tahay daraasadda iyaguba samaynayaan adiga laftarkaada inaad samayso maskaxdaad leedahay ayaa aad iyo aad qurux badan waal inaynu dadaalo communitygaynu aad u dadaalo aad iyo aad aynu maxay haytoy aynu rajaynaynaa insha allah annaga iyagan idinla hadlaynay idinka daawan doonaba maasha allah saaxiib dhow la noqo caruurta waxaan ku samayn doonaa barnaamij taxana insha allah sida loo dhitinayo ula dhiti maxay haytoy sheekaduna ay taagtaagnaan kaaga muuqanne baro waqtiyada kerinka ii sheegay kerinka kale waxay ka mid tahay inuu qofku usoo jeedo oo kale waxaa laga eegaa miitinada waalidiinta maba yimaadaan marka qaarba astaqfirullah tooba ya rabbi waa run miitinku waa lambar kow caruurta ballamaha iskuulka inaanad jarin ballamaha dhaktarkana inaanad jarin waa lambar laba meelaha waxaa iska ordaya waa hooyooyinkaas maalina la ilaaweyso maalina iska tegayso wallahi aadbaan uga xumahay laakiin miitinadan ayaan la ilaawey ka dhaktarka iyo ka iskuulkaba insha allah inaa idinku caruurta soo dhaweysaan ballamaha dhaktarkuna aad bay muhiim qofka haddii wax ku yimaadaan wax loo cogsado inuu qofkaas mar walba ballama jaray ilmaha ballantiisa waan ilaaway mar haddii uu rikoorka kuu gaaro hadhow tole haddii wax ku yimaadaan lambar ka waxaa lasoo weydiiya waa iskuulkiisa lambar labana waxaa lasoo weydiiya waa dhaktarka dhaktarka haddaad gudsan ka haysatid oo aad qof perfectiyo ballama ilaaliya aad tahay waa hadalkiisa lagama daba iskuulkana haddaad macallimiinta saaxiib dhow la tahay sida wax u dhacayaan iyo ilmuhu siduu u socdayo siduu wax u baranaya aad formation wanaagsan aad isdhaafsataana taana waad ku badbaadi kartaa maasha allah haddaa xiriir qurux badan marka xiriirka hala xoojiyo xabiib waqti ugu dheeraanaya insha allah program kale kaga hadli doonaa iyada lafteeda waxyaaba maaragtay dhibooyinka dhibta badan ee maaragtay caruur oo kala isna program kale ka hadli doonaa insha allah dhammaantiin asxaabteena quruxda badan maxaad usoo gabagabayn lahayd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.